asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu tiim garaad runaaantii bishaan aad aan u mashquulsanaa waxaan ku mashquulsanaa startup baa ka shaqeynaya oo la franchise tech macaamiishii iyo productigii inaan dhiso marketing aan u sameeyo google ads aan ku xiro iyo waxyaalahaas ku mashquulsanaa maanta markaa waxaan la soo noqonay muuqaal cusub akhyaar badan baa ila soo xiriiray shalay baa dhammaantood u wada jawaabnay su-aalaha qabtaan inta badan waa kasoo jawaabeynaa waxaan maanta rabaa inaan ka hadlo sababta jaamacad keliya in lagu kalsoonaado ay qalad u noqon karto. Marka koobaad, horta waa kuma Cabdishakuur. Aniga 7 sano ee lasoo dhaafay waxaan ku jiray programmingka anigaa isbaray jaamacadda. Anigoo sanadkii 3 sii bilaabayo yaan dhex kaga soo tegay si aan een, shirkaddan ula shaqeeyo. Kadib waxaan bilaabay startups iyo SaaS projects inaan ka shaqeeyo, macaamiil ajaanib ah iyo macaamiil international ah aan la macaamilo, cashiro badan aan ka barto, waxyaalo badan oo cashiro ah, waxyaalo badan oo fashil ah iyo guulo badan aan ka xaqiijiyo. Marka waa aragnimadeyda yaa raba marka halkan inaan idinkula wadaago. Marka koobaad, waxaan ka bilaabayaa waxa ka qaldan waxbarashada nidaamkii hore. Nidaamkii hore waxa koobaad ee ka qaldan waxay tahay dadku isku si wax uma bartaan. Aniga, adiga, saaxiibada, walaalaha, isku si ilaahay inuu muusan abuuran isku awood ma nihin. Qof waliba waxbuu ku fiican yahay. Qaar wuxuu ku fiican yihiin hogaaminta, qaar wuxuu ku fiican yahay talent ay leeyihiin teknolojiyadda, qaar caafimaadka, qaar public speakingka. Nin walba waxbuu jecel yahay oo calling u ah. Dhammaantood jaamacadda waxay gelinaysaa hal class, waxay qaadanayaan hal lessons, waxay qaadanayaan hal imtixaan, hal natiijo, wixii dhan waa hal. Marka waxaa soo baxayo qofkii yani aanan talentiga lahayn iyo qofkii talentiga lahaa isku meel inay joogaan, dhammaantood isku jaamacadda kii talentiga lahaa inay hoos u dhigto halkii ay ka bixi lahayd. Labo, experiencega runtii waa macalinka ugu weyn ee wax laga barto. Markii wax aad soo barato waxaa haystaa potential education, ma haysatid aqoon la taaban karo. Laakiin markii waxaa ku soo shaqayso nolosha caadiga wax la taaban karaa ka sameyso, markaas waxaad leedahay waxbarasho dhab ah. Su-aasha ugu fiican isweydiinta badan waxay tahay wixii aad baratay lacag ma u bedeli kartaa? Haddii ay tahay waxaa baratay waxbarasho dhab ah. Haddii ay madi tahana waxaa baratay waxbarasho aanan nafci lahayn oo general knowledge ah, ma aadan baran specific knowledge. Arrinka saddexaad ee ah cilladaha ay jaamacadda leeyihiin waxa ay tahay in wixii aad soo baratay aanan la adeegsan. jaamacadda waxaa soo qaadanaysaa luqada programming ah, waxaa soo qaadanaysaa luqada marketing ah, project management, waxay rabaan ha ahaadaan, laakiin nolosha caadiga ah ma idin isticmaalin. Haddii aad barato xirfad, waxay aad jaamacadda isla markii la dhaho ninka xirfadda meel uu kusoo bandhigo waa inuu helaa lab, waa inuu helaa macaamiil simulator ama macaamiil dhab ah uu la macaamilo iyo waxyaalahaas oo dhan. Intaba jaamacadda ma provide garayso. Waxaa intaas kasii daran hornaantii waqtiga kaa lumaayo si saxda ah. Markaasi wax loo baran kara waxay tahay aniga aan u bartay anfacday jaamacadda aan kaga maarmay freelancing aan kusoo shaqeeyey, shirkadaha kusoo aasaasay, marketing aan ku bartay, programming aan ku bartay, project management aan ku bartay, leadership aan ku bartay. waxa ay tahay markaasi kow, inaad ogaato waxa aad rabto inaad barato iyo sababta aad u rabto inaad u barato. runtii mar walba taas waa aasaasiga ah. waa inaad leedahay hadaf aad wax u baranayso. Haddii aadan lahayn sabab xoog leh oo aad wax u baranayso, wixii aad baranaysay waa ka caajisaysaa, muddo sii moodi kartid. Waa inaad hogaagaataa hadafka aad waxaan u baranayso. Tusaale, waxaan rabaa xorriyad dhaqaale, waxaan rabaa ganacsi inaan dhiso, waxaan rabaa bulshada inaan wax ka bedelo. Waa hadafyo la taaban karo. Markaas yaan leenahay markaasi waa maxay xirfadihii aan u baahnaa oo waxaas iga saacidi lahaa. Markii aad ogaato xirfadihii aad u baahneed, waa inaad raadisaa meeshii aad ka baran lahayd. Meesha ugu fiican aad ka baran karto waxa weeyaan qof waxaan isaga soo sameeyey, wax ku soo dhisay, soo daraaseeyey, experience la taaban kara leh, ku soo shaqeeyey, oo qaladaadkii aad samayn lahayd oo dhan ka ilaalinaya.
wuxuu ku siinayaa shortcut. markii qofkii aa hesho mentorship, qofkaas mentorka ah ka baro. 3, wax ku baro adoo sameynayo. weligaa waxbarasho intaa qaadato, buug intaa la baxdo ama assignment aa kasoo shaqeyso, macalin hala hortegin, ee wax ku dhis. caqabad dhab ah ku xali. suuqa geey, arag dad inay kaa isticmaalaan, wax dhab ah ku sameey. 4, adeegso AI si aad wax u barato. look AIska sida Gemini oo Google ay sameysay, ChatGPT OpenAI ay sameysay, Claude Anthropic sameysay, Grok, AI-daas oo dhan maalinba maalinta ka dambeyso way sii weynaanayaan, way sii garaadkoodu uu sii sara marayaa. marka modelkii maanta benchmarka ama yani modelada way tartamayaan. modelkii ugu horreeyay maanta mid kale kasii hormaraya, mid kale kasii hormaraya, mid kale kasii hormaraya. modelka asaga wax iska sii baranayo oo reinforcement learning isku sameynayo. marka inaad ayagii wax ka barato, fahamkii ay haysatay, inaad yani Gemini oo kale aad la tagto oo qeybta learningka aad geysato oo aad ka wareysto dhahdo haddii aad ku tusiyo Gemini oo kale, tusaale ahaan haddii aad tagno Gemini waxay leedahay qayb learning ah, AI-da dhan waxay leeyihiin qayb learning ah. xirfadii aad baratay fahamkeeda iyo sida u isticmaali karto iyo horumarinka xirfadahaada, waxyaalahaas oo dhan waxay kaa siinayaan guidance. 5 waxay noqonaysaa markaasi inaad ku biirto bulsho dhisaayo, inaad ku biirto bulsho. haddii kaligaa waxaa sameyso way adkaanaysaa inaad joogteyso. waxaana bini aadan, waxaa rabnaa social iyo meel yani bulsho badan ay joogaan. marka waa sababta social mediaha dadkay u jecel yihiin, sababtoo ah dad badan baa jooga. haddii keliya wax aad sameynayso waa cidloonaysaa, waxaa u baahan tahay dad supporti ah oo yani waxaan kula wajahayo. aniga kelinimaa soo sameeyey waxbarashada iyo shaqada iyo waxyaalo badan, laakiin team haddii aan heli lahaa runtii kelinimo iyo culeysyo badan aan wajahayo way iga yaraan lahaayeen. 5taas yaa stebiska ugu muhiimsan. marka tan u dambeysa waxay tahay si xirfadahaas iyo waxaasoo dhan stebiskaas oo dhan aad kugu fududeyno, shortcut aad kugu sameyno, anigaa kuu diyaarin markaasi garaad oo yani aad ku baranayso xirfadaha u baahan tahay, team aad ku helayso, mentorship hal ah oo lagula sheekeysanayo, oo guidance lagu siinayo step by step aad ku helayso. marka waxaan qabanaa workshops bilaash ah. workshops-yadeena waxaan ka daawan kartaa YouTube-keena oo aan kaga hadlayno sida AI u shaqeyso, sida freelancer loo noqdo, sida programming loo barto, sida SaaS loo dhiso, loo xayisiiyo, macaamiil loo helo. waxyaalahaas oo dhan yaan guidance kugu siinaynaa, road map dhammaystiran. marka kusoo biir garaad.